qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada ee Puntland ayaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxay ku eedeeyeen in uusan weli soo xulin guddiga xalinta khilaafaadka isla markaana uusan kala dirin golaha baarlamaanka ee Puntland. wariyahayaga Cabdifataax Cabdullaahi Faarax ayaa warkan inoogu soo diray mar kale magaalada Garowe. qaar kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntland ee doorashada 2019 oo maanta shir jiraayad warfidiyanka ugu qabtay magaalada Garowe ayaa warmurtiyad waxay ka soo saareen cawaaqib xumada ka dhalan karta habaasanaanta ka muuqata soo dhisida guddiga xalinta khilaafaadka iyo kala saarista xildhibaanada iyagoona sheegay musharaxiintan inay jiraan nabadoonno warqad ogolaanshaha siinaya in ka badan hal xildhibaan. waxaana warmurtiyeedkaasi warbaahinta si wada jir ugu akhriyay musharax madaxweynaha Puntland Aadan Ciise Gaadaale iyo musharax madaxweyne Janagale. maanta oo ay tahay maalin axada bisha November 25keeda 2018 anagoo aan murashaxiinta halkan fadhida oo magacantoodana hoos ku qoran yihiin iyo qaar kale oo kamid ah murashaxiinta aan hadda halkan nala joogin laakiin aan tala wadaagnahay waxaan jecelahay inaanu qabanno shir saxaafadeed ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka iyo kala saaridda xildhibaanada ee dowlad goboleedka Puntland doorashada ku soo aadan bisha January sanadka 2019 haddii guddigaasi uusan ahayn mid dhexdhexaad ah ama tayo fiican leh ama aqoon iyo waayo aragnimo weyn aan u lahayn xaaladda dhaqan iyo midda siyaasadeed ee Puntland waxaa ka dhalan kara dhibaatooyinka soo socda. madax bannaanida iyo kalsoonida guddiga lagu qabo oo la waayo mar haddii aan laga talagelin musharaxiinta oo uu ku tagrifalo soo magacaabidooda madaxweynaha talada haya oo keliya. waxaa kaloo muhiim ah in madaxweynuhu caddeeyo inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimo 2019 waa in shuruudaha guddiga iyo awoodahooda la isku waafaqo oo musharaxiinta isimada dowladda iyo bulshada rayidka ahi isku raacaan. in laga wada tashado magacaabista guddiga khilaafaadka iyo kala saaridda xildhibaanada si looga hortago isqabqabsi iyo ku tagrifal masiirka ummadda. in xubnaha guddigu noqdaan kuwo isu dheelitiran kana kooban gobolada Puntland. in guddiga aysan ka mid noqon karin shaqaalaha dowladda, la taliyaasha iyo kuwa la shaqeeya xafiisyada dowladda sare ee madaxda sare ee dowladda si loo ilaaliyo madax bannaanida guddiga. in xubnaha guddiga aysan ka mid noqon karin qof ku cad ama u ololeynaya musharax gaar ah. sidoo kale Aadan Ciise Gaadaale waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uusan mas'uuliyad iska saarin difaaca xukuumadda Puntland taasi ah oo ay la xiriirinayaan safarkii madaxweynaha Soomaaliland uu ku yimid qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sool. waxaan ka leenahay waa nasiib xumo in maantay magaalada Garowe loo jiro 50 kilomitir oo madaxweyne isku magacaabay qayb Soomaaliya ka go'aysa dalbalaarsi uu wado in uu ku sugay oo ku cadeeyay meesha uu maanta joogaa inay tahay qaybta uu goosanayo inay ka mid tahay oo waliba uusan inta aysan ku sii joogin ah waxbaaba naga sii maqan. arintaasi waxa ay ku tahay meel ka dhacweyn dawladda maanta joogta oo ay tahay inay wixii ku habboonaa talaabada ka qaado. waxaan aad uga xumahay runtii shirkani jiraayada musharaxiintan ay ku qabteen magaalada Garowe ayaa ku soo aadaya xilli wali aan la magacaabin guddiga xalinta khilaafaadka iyo kala saarista xildhibaanada. Cabdifataax Cabdullaahi wararka TV-ga caalamiga ee Som News Garowe.